كليلة ودمنة كليلة ودمنة كليلة ودمنة كليلة ودمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. كليلة ودمنة waxaa turjumay xasan maxamuud riilood. mahad alla ayaa leh hadda iyo hadhowba. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. waxaad arkaysaa malaa'igtoo ku wareegsan gaararka carshiga kuna tasbiixsanaya mahadda eebbahood, waxaana la dhihi mahad eebbaa iska leh bini aadmiisu celiyo u celinaya. dadkii qoray buugga Kaliila Wadimna iyo kuwii turjumay dhammaantu Sheekh Cabdirashiid Cabbaase oo gacan weyn ka geystay akhriska lahaana fikradda ah in buuggan Soomaali loo turjumo. shaqaalaha Somtal ee laanta xudun dhammaantood waxayna gacan iga siiyeen xagga dabka iyo internetka. mahadda waxaa la wadaaga mulkiilaha shirkadda iyo dhammaan shaqaalaha Somtal. Saare Maxamuud Riilood oo taageero lama ilaawana noo fidisay intii aan ku hawlanayn qoridda buuggan iyo turjumidiisa. injineer Cabdikariin Siciid Cawli injineerku wuxuu iga caawiyay xagga qalabka kombiyuutarka aan badi ku qoray buugga ka gadaal markii kombiyuutarkaygu ciladoobay. bila Siciid Maxamed oo isaguna gacan lama ilaawana na siiyay. dhammaan saaxiibayaal wad mahadsantiin. hordhac Kaliila iyo Dimna waa buug caan baxay oo loo yaqaan wadar iyo keliba. waa sheekooyin xigmadida ay soo laga soo minguuriyay carabta. waa sheekooyin la soo mariyay carabka xayawaanka sababtoo ah mastuurasho runta la maldahayo awgeed. kulli heeriye sidata iyo geesoole boqor ah. waa dhalanteed sawirashada xeel dheeraanta xigmadda iyo midaba kala bedbedelka maskaxda ka suuroobi kara iyadoo looga gol leeyahay in lagu hagaajiyo oo lagu tababaro qalbiyada dadka yaryar iyo kuwa waaweyn. mahmaah daraadi Kaliila iyo Dimna waa buug hore oo asraar badani ku duugan tahay. halabuurkiisii hore ma wuxuu ka yimid Hindiya mise Aasiyada dhexe? waa su'aal weli mugdi ku jiro. carabta turjumaada ayuu ku soo gaadhay oo sidaasuu ugu caan baxay muddooyin sii horreysay. sida la ogyahay waxaa ka mid ahaa dadkii gabay ahaan wuxuuga sheegay abwaan la odhan jiray Abbaan ibn Cabdulxamiid oo ka mid ahaa gabyaagii dowladda Cabbaasiyiinta. waxaa iyaguna gabayo ka tiriyay Sahal ibn Nabokhat iyo ibn al-Xabariya. sida aan muranku ka taagnayni waa inuu turjumay Cabdullaahi ibn Muqaffac oo luqadda Carabiga ku qoray meel uu doonaha ka keenay. waxaana xusid mudan in buuggan ay oraahyo ka yiraahdeen Imaam Dahabi iyo Imaam Ibn Jawzi. marka aynu ku soo dhawaano buuggan waxaa hordhaciisa Carabiga ah ku jira hadallo badan oo sheegaya in Cabdullaahi isagu nafahaantiisa curiyay buuggan iyo oraah kale oo oranaysa maya ee uu soo turjumay oo wuxuu buuggu u noqonayaa muddo 2000 sannadood ka badan India gobolka Kashmir. waxayna leeyihiin waxaa buugga alifay nin filosoofar ahaa oo la oran jiray Baydaba. sidaa oo kale waxaa muran badani ka jira waxa uu ahaa Cabdullaahi oo ah ma muslim ayuu ahaa mise mid diin kale hoosta ku haysta oo qarsanaya muslimkana la nool ama waxa loo yaqaan sindiiq. sidaa oo kale waxaa muran ka jira sidii uu u dhintay Cabdullaahi oo hadallo badan laga sheegayo. buuggan waxaa akhriyay inta badan dadka wax akhriya ee ku dhaqan ama ku nool dunida carabta iyo adduunka kale oo micnuhu waa in lagu turjumay luqado fara badan oo lagaga hadlo adduunka. buuggani wuxuu leeyahay faa'iidooyin aan la tirin karin ama la magac dhabi karin oo dhexdiisa ka buuxa. waana waxaan u dooray inaan af Soomaali ku turjumo anigoo uga gol leh in dadkaygu faa'iido. buugga aan ka soo minguuriyay ama turjumay waa buug yare uu qoray Sulaymaan ibn Saalax al-Kharashi. ciddii faahfaahin rabtaa buugga waxay heli kartaa isagoo intan ka dheer oo ka hadal badan. tanise waa micnihii oo urursan. waxay kaloo albaab wax lagu fahmo u tahay ciddii rabta inay sii akhrido. sidaa oo kale waxaan ugu talagalay inuu noqdo buug carruurta loo akhriyo waqtiga hurdada ee Soomaalida casriga ah. ogow Soomaalidii hore waxay lahayd sheekooyin la dhageysto oo badanaa ay iyadu sheegto ilmuhuna ku raaxaysto oo hurdada ku galo. talada aan hayaa waa hayso oo dhigo guriga carruurtana u akhri habeenkii oo dagaal ha ku seexin.